Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalkeena Waladi Family anigoo ah Ina Cabdirasaaq. Maanta waxaan rabaa inaan niila wadaago qiso oo cajiib ah oo la ii soo bandhigay. Ma niila tahay qisadaas oo kale inay dhici karto? Anaga kolley qisadaasayta ma beenin karno mana rumeeyi karno maadaama oo qiso oo naloo soo dhigay ama naloo soo bandhigtay ee tahay qisadaasayto qofkii markaasayto qisadanayta soo wariyay ama dhabta ee ugu dhacday. Aniga aad iyo aad aan u yaraa markay qisadaasayta igu dhaceysay, waxaana dhiganayay dugsiga dhexe. Dabeecadahaygana aad iyo aad dabeecadaha dadka caadiga uga duwaneed. Waxaa jeclaa waxyaalaha jinniga lagu waco ama lagu saqiro jinniga soo micnaha oo shaqo ama lacag ama waxyaalahaas kugu keeno. Micnaha qofka sheekadaasayta ka sheekeynayo waxyaalahaasayta inuu aaminsanaa oo nii sheegoya. Micnaha soo aaminsanaa ama see la ahayd. Aniga marka waxaa ahaa arday oo dhigto dugsiga dhexe. Waxaana ka soo jeedaa ama ku noolaa dowladda Masar, gaar ahaan caasimadeeda Qaahira. Maalin maalmaha ka mid ah anoo socdo laamiyada oo Qaahira ka mid ah, anigoo dhex wareegaya ama socdo, waxaa arkay meel oo buugag xaraashay laga dhahayo ama lagu xaraashayo. Inta badan buugaga waxay u badnaayeen kuwo falsi ama bug ah, laakiin waxa dadkaasayta oo waxyaalaha soo daadsadeen waxaa ishayda soo jiitay qof oo meel gaara fadhiyo oo buugagaha dadka kale oo ka duwan. Oo buugagihiisa waxay ka hadlayeen cabsi iyo jinniga iyo waxyaalaha lagu waco ama istixdaarul jin. Walciyaadu billaah. Qofkii markaasayta oo ishayda soo jiitay ayaa aaday oo buugagiisa meeshaasayta u fiirsanaayeen. Buugna siiba gaar ahaan waxaa ishayda u soo jiitay buug la dhahayo kitaab Shamsil Macaarif. Waa buugga oo sixirka ama jinka lagu waco. Buuggiyaa markaasayta meesha ka soo gatay. Qofkii ka soo gatay buuggii waa ka soo wareegsaday. Gurigayga u soo qaatay buuggii waa akhristay. Markaa akhristay waxay masawiro oo meesha ku jiray sawiray derbiyada ku dhagsaday. Markaasayta ilmo yara ahaayo waxaasayta sameynaa inay nolosheeda khatar gelinaysa ama wax dhibaato ay ii keenaysa ilama aheeno. Cunug yara ahaa waxaasayta nama dareensaneen waxa ku kacayana ma fahamsaneen. Saasay tahay wixii buuggii akhristay wixii masawiro oo ku yaalana waa masawiray. Waxaa ku dhijiyay derbiga qolkayga ku dhijiyay meesha muraayada ay taalo tasriixada iyo armaajooyinka iyo derbiyada dhan ku wareegsaday. Waxaa dareemay qolka markaa ku jiro inay sawiradii aniga isoo dayayaan ama ii qoslayaan. Markaasayta cabsi oo fara badan dareemay. Markaa dareemay sawiradaasayta aniga inay soo dayaan ama ii qoslayaan. Seenberina waxaa dareensanaa qolka inaa aniga keligayga ahayn oo liila joogo. Markastana waxaa dareemi jiray neef oo qof gadaasheeda fadhiya ama taagan. Haddaa gadaal fiiriyana qofna igulama jiro qolka waayo aniga qolka keligayga deganaa. Waana ogaa inaa aniga ma ahay qolkaasayta oo qof kale uu ku jirin. Saasay tahayna dareenkaasayta nama oo dhamaanin. Maadaama oo waxyaalahaasayta dareemo oo sawiradaasayta ii qoslayeen, waxaa go'aansaday inaan buugagaha iska aruuriyo oo meelna iskaga xareeyo. Waana iloowe sheekadaasayta buugagiina waa iska xareeyay. Buugaga markaa iska xareeyayna nolosheeda hore u sii wata barashadeeda sii dhammaystay dugsiga sare. Aan ka baxay jaamacadda sii dhigtay. Jaamacadda markaa dhigana waa dhammaystay. Markaa dhammaystana camal la'aan iyo shaqo la'aan ay igu dhacdo. Waa fikiray. Fikirkii wixii markaa iga batay waxaa soo xasuustay buuggii xareystay ama buugyaashii xareystay. Waxaana go'aansaday inaan buuggii soo baxsado. Maadaama shaqo la'aan ay ihayso camal la'aan oo ihayay, waxaa camal ka dhigtay inaa buugagii ama wixii ay markii hore iska xareeyay inaa soo baxsado. Saakalkaanayto oo run ahaan jinnigaasayta u waco ama jinniga u wacdo oo u saqirto see waxaa raba ay igu sameeyaan. Aniga markaasayta aaminsanaa. Saakalkaanayto buugaga waxaa ku dhahay niyad iyo qalbi u hayo sidii kalkii hore u aqrinayo meehe si ka sii daran u aqriyo anoo niyad iyo qalbi iyo hami u hayo. Oo heer waxaa gaaray oo buugaasayta in dhowr bag dusha ka qabto korna ka maqashii karaa gaaray heer oo niyad ugu hayay daraadeeda. Masawiradii iyo wixii dejiyeen waa soo celiyay meelahoodii ku dhijiyay.
waxaa soo noqdeen waxyaalihii markii hore oo aad dareensanaa. Wixii oo kalkii hore aad dareensanaa soo noqdeen mar labaad iikoo dhowr jibaar ah. Kalkaaniitana sheekada sidii hore way kasii darneed. Albaab la garaacayo, naag qaylinayso, waxyaalahaasiiti waxyaalo fara badan maqli jiray. Tookadaaniitana waxaa dareensanaa oo aana hubay aad dareensanaa aan ahayn oo aana hubay inuu qof aniga ahayn mee qof kale inuu ila joogo qolkaasiito oo aniga keligii qolkaasiito ku jirin. Marka waxyaalo badan qolkayga ka dareemaya ama ka dhexdhacay. Waxaasoo dhanna waxaa sabab u ahaa buugga mar labaad soo celiyay ama furay. Calaamadahaasiitana waxay ka mid ahayd inay ka imaadeen ama ay joogaan oo anigana fahmin dabaadnimadeyda. Anuu barsada iska fadhiya walaalkayga la fadhiya qolkayga saan u fiiriya albaabkiisa. Haddaa fiiriyana waxaa arkaa soo qof iga soo dayayo kasoo qoslaya. Intaa walaal fiiri aana dhihin qofkii waa marqay sida ka inuu meesha uuba joogin qof dhan oo qofnaba asaaskeedu uu joogin meesha. Waxaa la gaaray maalinta maalmaha ugu xumeed oo arkay ama codkooda maqlay. Anigoo barsada dhex taagan oo barsadana mugdi ay tahay oo keligeena guriga joogo waxaa arkay qolkayga. Haddaa fiiriyana qofkii oo markii soo dayayo oo mar labaad dhex taagan qolkayga arkay oo mugdigana ku dhex jiro. Markaasaytu waa cabsado waxaana go'aansaday inaan buuggaasayta qaado buugaga dhan guro gubo aana daadiya go'aansaday. Laakiin maxay tahay aniga geesinimo iigu jirin oo keligeyga inaan qolkaasayta gala buugaga ka soo arooriyo. Ii jooga eygeyga wacay waa soo watay qolkiina hadduu soo galay eygii qaylo iyo wacwac joojin waaye. Markaa arkay eygeygii oo xaaladaasayta oo indhihiisa taagayo waaweyn ka dhigayo dhigihiisana taagayo waa dareemo markaasayta inuu eyga wax uu u jeedo ama wax uu meesha ka arkay. Geeska qolkana wuu dayayo zaa'id u qaylinayay. Markaasaytana zaa'id u cabsada aniga eyga waa soo bixiyay. Markaasaytana waxaa go'aansaday aniga keligeyga inaan soo noqdo buugagaasayta guro gubo. Eygii markaasayta meesha markaa ka bixiyay oo banaanka u bixiyay waa soo noqday anoo cabsanayo gariirayo argagax igu jiro. Markaasaytana bustaam inaa isku soo duuduubay qolkii soo galay anoo ordayo buugagii waxaa aruurin karaa aruuriyay. Markaasayta xoogaa inaa istaaga waxaa dhahay yaa tihiin iska baxa manii rabi mana nii baahni iska baxa. Anoo saas dhahayo wixii ugu xumaa igu dhacay. Korontadii way tagtay. Korontadii hadday tagtana waxaa la dhahay haye inaana wacdid ma iska keen fasaxaysaa dheel ma u maleysaa. Halahaasayta haddaa maqlane waa suuxay. Haddaa suuxana joorigeyga ku kor suuxay sariirteyda. Markuu miirkii iga tagay wuxuu miirkii igu soo noqday korontadii oo weli maqan oo anigana cirkana ay jirin dhulkana ay jirin oo sariirteyda korkeedana saaranahay. Dhagteyda agtiisa in la soo istaagaa waxaa la lahay adiga inaana wacdid ma haddana nadiraysaa dheel ma agtaada ka nahay. Markaa saas maqlay anigana waxaa bilaabay inaan akhriyo idaa zulzilatil ardu zilzaalaha. Markaa gaarana meesha oo la marayo. Markaa gaarana qaybta oo ashtaatan markaa gaarana waa hadli waayo waxaa la dhahay inaana wacdo ma nadiraysaa dheel ma kula nahay. Markaasayta waxaa dhahay yaa tihiin idinka oo maxay iga rabtiin oo iska baxa khalaas hadda niima baahniye. Markaasayta waxay dhaheen adiga haddaa aniga ogeyn inaad dabaal tahay ama nacas aad tahay anaka ma ku caawin lahayn laakiin waa ku caawinaynaa buugaga gubi lahaydna wax khayr kuuma sameyn lahayn sheekadu way sii xumaan lahayd noloshaadana way sii gedin lahayd heeraa waalato ama aad dhimataa gaari lahayd haddaa buugagaasayta gubi lahayd. Waxaa kugu waaninaynaa anaga inaa buugaga qabatid oo qastid oo biyo ku qastid markii qoraalka oo ka bao. Markaa qastid oo qoraalka iyo xaanshida ay kala hiraan biyaha oo qoraalka uu ku hiray waxaa ku daadinaysaa meel dheer. Xaanshiyahana waxaa ku duugaysaa meel oo meeshaasayta oo biyaha ku daadis meel ka dheer ku duugaysaa. Labadaasaytana waxaa isku dayaysaa inay taabanin ama isku imaanin. Maalinta istaabtaan ama isku imaadaan noloshaada waa ku soo noqonaynaa anaka. Markii codkaasayta oo sas oo idhahay oo dhinacayga ka hadlayay waxaa dhahay ma qofkaaniita ma khayr oo kula rabaa mase shar.
ma warkiisa raacdaa mase waa iska dhaaftaa. Laakiin go-aanka lama laheeno warkiisa qaatay. Wuxuu idhahayna samee waa sameeyey. Soo idhahayna see dhaheenna nolosheeda way ka baxeen. Maalinkana lama ku arkin. Waxaa meeshaaneyta ku waaninayaa dadka oo joogo ama qisadaaneyta daawanaya ama soo gaarayso inay waxyaalahaaseyto kale ee ku kicin oo iimaankooda ee dhuuqsadaan oo kiyaabo weyn ay ku dhuuqsadaan. Wuxuu Ilaahay ku sii waayeyne wax kale kama helaysidoo addoon Ilaahay oo abuuray kama helaysidoo xaajadaadana seenbari Ilaahay ayaa loo sheegtaa. Daadanana in loo tago lama dhaho waxaaseyta ay haasato ama dhibkaas ay haasto waxaas waa laga roon yahay. Ilaaha dacwadaada loo dhigtaa. Wixii xaajadaadana Ilaaha laga tuugaa. Waxyaalahaaseyto kale waxaan igu waaninayaa inaadan ku kicin ama aadan sameeyin. Haddana qisadaaseytana wax badan ka soo wareegatay. Maantana nin weyn aan ahay aniga. Waqti dheer aan ka soo wareegtay. Waanadeydana qaata walaalkiina ahay. Gefka aan shalay gaarsaday ama aan ku dhacay idinka ha ku dhicinina. Marka saasay sheekadeena ku soo dhamaatay. Haddaa sheekada ka hesheen like na siiya, subscribe-kana noo saara, commentika iyo share-kana hanaga iloobina. Maca salaama. Nabadgelyo.